Muuqaalkan waxaad diiradda ku saari doonaa qaabka scientific loo geliyo trigonometry waa qaybtii koowaad. Waxaa ku baran doonaa marka ay tahay sin. Haddaba marka aan bilowno, su-aasha koowaad waxay noo qoran sin 15 degree. Scientific marka hore fiiri, kolkaan waa inay saaran tahay xarafka degree, waa inuu saaran yahay oo degree oo da oo yaris ah. San oo kale haddii uusan ku saarnayn waxaa taaban doonta calaamadda marka hore shiftiga taawa, kadib waxaa taabanaya calaamadda moodka, kadib lambarka saddexaad waxaa qoran degree waaye oo lambar saddexaad taaban doonaa marka. kadib kor maxaa ku saara marka xarafka d oo degree ee waaye. kadib su-aasha gelin oo inoo qornaa sin 15 waxaa taaban doona marka u hore sin taawa, kadib maxaa waa 15 oo 15 ah, kadib bisha soo xir marka. kadib waxaa taaban doona calaamadda equalka marka oo jawaabta meeqa ah marka waa radical 6 oo laga jaro radical 2 oo dhammaan loo qeybiyay maxaa waa 4 waaye. oo jawaabta qorna maxay doonaa jawaabta waxay la mid tahay doonaa waa radical 6 oo laga jaro radical 2 oo dhammaantooda loo qeybiyay 4 waaye. si fudud jawaabta soo helna anagoo aan qabanin shaqo dheer waa khalaas oo kaliya. su-aasha labaad waxay noo qoran sin 75 degree waaye, iyadana waa degree. kor weli waxay noo saaran maxaa xarafka d saaran weli maxaa oo degree ah. kadib kuwan baabi calaamadda on taabo, weli kor waxaa saaran degree. kadib waxaa taaban doonaa waa sin 75 markaas. kadib bisha soo xir markii baxdhi doona calaamadda equalka. jawaabta waxaa marka radical 6 plus radical 2 dhammaan loo qeybiyay maxaa 4 waaye. haddaba marka aan qorno waxay la mid tahay dhihi doonaa waa radical 6 oo lagu daro radical 2 oo dhammaantooda loo qeybiyay 4 waaye. khalaas oo kaliya. su-aasha saddexaadna waxay noo qoran sin minus 105 degree ayaa haysanaa, iyadana waa mid degree ah. markiiba meeshaan kor waxay noo saaran degree waa waxaa dhihi doonaa marka maxaa waa sin, kadib waa minus, markaan waa minus 105 degree marka. kadib bisha soo xir marka markiiba waxaa dhihi doonaa calaamadda equalka marka, iyadana waxaa jawaabta minus radical 6 plus radical 2 dhammaan loo qeybiyay 4 waa marka. haddaba marka aan qorno oo waxaa dhihi doonaa waxay la mid tahay noo dheh waa minus radical 6 oo lagu dari doono radical 2 oo dhammaantooda marka maxaa u qaybin doonaa 4 waa. khalaas oo kaliya. su-aasha afraad waxay noo qoran waa sin 5 by oo loo qeybiyay 22. midaan marka mid radian waa degree ma aha markaan. scientific marka waxaa saari doonaa markaan radian waaye. marka hore kuwan baabi calaamadda on taabo tirtir, kadib shift dheh, kadib calaamadda moodka taabo, kadib lambarka afraad waxay noo qoran waa rad oo radian ee lambar afraad taaban doona. kadib kor waxay noo qoran waa r oo yaris ee maxaa oo radian waaye. kadib su-aashaan geli marka waxaa dhihi doonaa marka maxaa waaye sin taabo marka hore calaamadan qaybta sareeyaha iyo hooseeyaha taabo. kor marka waxaa qori doonaa 5 by waaye. marka hore 5 taabo, kadib calaamadda byda maxaa marka hore shift taabo, kadib calaamadan oo times 10 ka waa jibaarka ah calaamadan byda midaan waaye. kadib hoos imo hoostaan reex, kadib hoos waxay noo qoran maxaa 12 qori doonaa 12. kadib geeskan ayaa riixi doonaa, kadib bisha soo xir marka. kadib waxaa dhihi doonaa equal marka oo jawaabta maxaa radical 6 plus radical 2 oo dhammaan loo qeybiyay 4 waa marka. aan qorno waxaa dhihi doonaa waxay la mid tahay noo dheh equal inoo dheh waa radical 6 lagu daray radical 2 oo dhammaantooda loo qeybiyay 4 waa. khalaas oo kaliya waa muuqaalkan. aad waa mahadsantihiin. thank you.